deegaanka Gololey waxaan doonaynaa inaan warbixin aan naga siiso waa beedka Runugood Media deegaanka Gololey waxaa ka dhacday arrin la yaab leh marka waxaan doonaynaa inaan halkii baaritaanku uu ku dambeeyay iyo qaabkii sida loo xaliyay inaan warbixin naga siiso. هذا ما ستوعي runtii Gololey waxaa ka dhacday dhacdo aad u xanuun badan oo lagu laayay dhalinyaro gaaraysa 8 dhalinyaro oo ah dhalinyaro si isku xilqaamayay oo jooga tuulada Gololey oo ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe sidoo kalena waqtigooda iyo xoogooda ay u sadaqeynayaan dadkooda iyo deegaankooda oo si xilqaan ay ugu shaqeynayeen tuulada Gololey ee gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan degmada Balcad runtii si arxan darro oo lama filaan ah ayaa loo xasuuqay oo runtii dad fara badan ay la anfiriireen qaabka xun ee loo laayay iyo sidoo kale dhacdada xanuunka badan ee lagu xasuuqay sidoo kale maamulka Hirshabelle ayaa waxa ay sameeyeen guddi baaritaan iyo xaqiiq raadin qaabka ugu dhacay xasuuqa ilaa iyo haddana wax jawaab ah kama aysan bixin taasina waxay noo muujinaysaa in aad loo dayacay dhalinyaradaas xasuuqa xun ee loo geystay. Sababta maxaa waaye intaasoo dhalinyaro lagu laayay oo waxba garabsan? sababta ugu weyn ee aan u aaneynayno laynta la leeyay dhalinyarada waa dhacdo runtii uguba runtiina waan ka xunnahay dhibaatada xun ee loo geystay dadkaas masaakiinta ah ay dhaleen dhalinyaradaas halkaas lagu laayay runtii ilaa hadda lama sheegin sababta loo laayay waxaa laga sugayaa guddigii xaqiiqaadinta sababta dhalinyaradaas loo laayay dhalinyaradi kadib haddii falkaas uu dhacay maamul ka socda oo xaalmarin wada ma la arka ilaa hadda ma jirto qof xitaa ka xaalmarisay oo xitaa ka raaligelisay dhibaatadaas xun ee loo geystay dhalinyaradaas ee dilka ah xitaa aanan dil ahayn oo xasuuq wadareed loo geystay ma jirto ilaa hadda cid ka hadashay iyo cid ugu tacsiyeysay dadkaas masaakiinta ah ee lagu laayay deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellada Dhexe. dowladda dhexe maxay ka dhahday arrintaas? runtii dowladda dhexe waxaa mas'uul uga ah maamulka gobolka Hirshabelle ama maamulka Hirshabelle gaar ahaan khaasatan guddigii loo xil saaray oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha dadkaas ayaana dowladda wakiil uga ah iyagana jawaab laga sugaya. sargaal military oo ka tirsan ciidamada militariga xoogga ayaa lagu sheegay inuu dhibkan qayb weyn ka geystay marka arrintaas sax baa mise waa been? runtii ma xaqiijin karno ilaa hadda guddiga ayaa ka warsugaynaa xaqiiqda dhabta ee jirta xasuuqii loo geystay dhalinyaradaas ilaa hadda ma tilmaami karno farna kuma fiiqi karno mana muuqi karno qof hebel ayaa dilay ama qof hebel ayaa sidaa yeelay ilaa guddiga loo xil saaray xasuuqaas ay warbixin ayaan ka sugaynaa in guddigaas la dabagalo oo la weydiiyo halka uu baaritaankooda ku dambeeyana waxaa iskale matalaha dhalinyaradaas xildhibaan cabdiqaadir carab oo runtii aan aaminsannahay inuu ka gaawiyey sida wax ugu qaban lahaa ama uu durjoogtin uu u samayn lahaa guddigaas loo xil saaray inay baaritaan cad ay kusoo sameeyaan xasuuqii ka dhacay deegaanka Gololey. maamulka Hirshabelle baaritaanka oo wada qayb ma ka tihdeen idinku? annaga dhalinyaro ahaan dhalinyarada ka soo jeeda deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellada Dhexe ma jirto cid annaga aan u xil saarnay ama noogu jirto guddigaas taas ayaana muujinaysaa in guddigu uusan shaqayn sababtoo ah dadkii laga laayay dhalinyaradaas haddii guddigaas ay ku jiri lahaayeen waxaan aaminsanahay guddigaas inay shaqayn lahaayeen iyo dhaqaaqi lahaayeen taas sababta ugu weyn iyo hay'adda ugu weyn waxaa iskale xildhibaan cabdiqaadir carab oo runtii aad uu ka gaawiyey in dhalinyaro ka tirsan deegaankaas lagu diro guddigaas si aysan u joogsan baaritaankaas. xildhibaanka maxaad ku eedaynayhe oo eedaynta aad ku eedaynayhe maxaa waaye? xildhibaan cabdiqaadir carab oo ah xildhibaanka matala deegaankaas runtii wax badan ayaan ku eedeynayaa oo qayb ay ka tahay xasuuqaas ee Gololey runtii oo keliya uu ku ekaaday inuu soo tacsiyeeyo oo uusan gudan shaqadii loogu idmaday in qof matala ah dadkiisa lagu laayo xitaa ma wax shakhsi ama laba shakhsi lagu dilay waa bil wadareed waxaa laga rabay door wanaagsan inuu ka ciyaaro oo ah inuu dabagalo sidoo kalena xooggiisa iyo sidoo kale awooddiisa uu isku geeyo si guddigaas ay warbixin cad ay ka soo saari lahaayeen deegaanka xasuuqii ka dhacay deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellada Dhexe.
xildhibaanku waxaan haynaa inuu mar deegaanka tegay markii dhib ku dhacay wax yar kadib haddaba uu la kulanayay muxuu idin sheegay la kulankiisa kadib xaqiiqda aniga hayno waxa weeye xildhibaan cabdiqaadir qare xaragow markii uu dilka dhacay kadib uu meesha tagay isaga iyo guddiga runtii tegitaanka loo qada dadkaas mar rabaan waxa ay rabaan in si cad loo soo saaro ciddii ka dambeysay dilkii wadareedka ee loo geystay carruurtooda ama dhalinyaradooda baaritaan cadaan idinku qayb ka ahayn oo maamulka jawiya oo qayb ka yahay oo iyaku wadaan maxaa waaye waxa laga fila karo oo kasoo bixi kara is leedihiin idinku waxa wanaagsan su-aashaas inaad weydiiso matala deegaanka haddii cadaalad la waayo oo arrintaas cadaalad loo waayo dhibka ka dhalan kara muxuu yahay annagaan aaminsannahay eedda ugu weyn aan dusha aan ka saari doonaa haddii dhalinyaradaas cadaalad loo heli waayo matalaha dhalinyaradaas matala ee ku matala dowladda federaalka soomaaliya idinka dhalinyaradiina tafaareer ugumayna ka dhexey mase mid aatiin arrintan dhammaan dhalinyarada kasoo jeed deegaanka kulele saameyn xun ayuu ku yeeshay dilkaas xitaa waxyaabaha hadda annaga aan ka cagajiidayna waxa weeya inaan dib aan ugu laabano deegaanka kuleley ee gobolka shabeellada dhexe sababtoo dadka shalay digay dhalinyarada waa ay joogaan oo si xor ayay wadada ku maraan si xor ayayna magaalada ku maraan wayna fudaan kartaa inay mar kale dil wadada geystaan haddii aad weysiin wax jawaab ah oo dhinac walba ka socda ugu dambeyn maxaad qaadan doontiin annaga jawaabta ugu weyn aan sugayna waxa weeyaan dadkii dilay dhalinyaradaas in la helo sidoo kalena maxkamad la saaro sidoo kalena sharciga wax uu qabo la marsiiyo haddii la marsiin waayana waxaa noo cad inay raalli ay ka yihiin dhammaan in la laayo deegaankaas uu raalli ka yahay matalaha dadkaas matala iyo sidoo kale dadka kasoo jeeda deegaanka ee ku jira dowladda federaalka soomaaliya iyo hirshabeelle oo ugu horeeya xildhibaan cabdiqaadir xaragow gebagabadii maxaa xala ood soo jeedi lahayd maamulka iyo dowladda dhexe iyo odayaasha dhaqankaba waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan usoo jeedinayaa in loo kaco si baaritaan cadaalada oo xaqiiqa loo marsiin lahaa xasuuqii ka dhacay deegaanka gololey ee gobolka shabeellada dhexe sidoo kalena sharciga la ogeyn lahaa dadkii ka dambeeyey dilkii wuxuushnimada ahaa iyo sidoo kale xasuuqii wuxuushnimada ahaa ee lagu laayay dhalinyaradii deegaanka gololey oo runtii ahaa dhalinyaro isqaamay oo xoogooda iyo waktigoodaba u horay in ay u sadaqeeyaan ay u huraan dadkooda iyo deegaankooda waxaa dowladda dhexe iyo dhammaan cid walba oo qasiisa waxaan weli aan sugaynaa aan dhagaheena aan taagaynaa ilaa hadda aan ka fuushanin in la helo dadkii